shaqada aad maqlayso waxa waaye jawiga uu leeyahay gurigani waxaana uu ku yaalaa xaafadda Runda qiimihiisa waa 350 milyan laakiin gorgortan waa jira gurigani inta qol uu ka kooban yahay waxaan doonaynaa insha Allah inaan xisaabno aan isla aragno balse cabir ahaan waxa waaye 10,000 oo square feet ah gurigani waxa uu leeyahay amenities markii la dhaho wax walba swimming pool waa meesha hadda aan ka soo bilaabo muuqaalka ayaan soo socday hadhow dambe ayaan idin ku celin doonaa idin tusi doonaa balse si guud 10,000 oo square feet guriga ku fadhiyo cabirkiisa inaba caadi maaha weynaanta baaxadda balaca waa dhammaystiran haddii aad maqli jirtay marka gurigani waxa uu suuqa ka joogaa 350 milyan dhulka uu ku fadhiyana waxa waaye 0.6 acres dhirta iyo jawiga gardenka markaas uu leeyahay ma laga sheekayn karo xaafadda uu ku yaalana dee waa xaafadda Runda oo aad garanaysaan dadka qadeeya xaafadda safaaradaha caalamka ee Kenya halka ay ku yaalaan intooda badan dhirteeda iyo jawigeeda waxa waaye ma laga sheekayn karo inaba caadi maaha laakiin xaafaddani guryaha ka wada dhisan giddigood waxa waaye mansions iyo villa iyo townhouse kuma jiro hal apartment ah oo dheer ma arkaysid waxa waaye xaafadda la doonayo in carruurta si fiican markaasi ugu barbaarayso halka aan joogno hadda waxa waaye albaabkii mainka ahaa ee laga soo galay markaas sidaas uga soo gasho guriga halkan ayuu ka muuqdaa gurigani waxaan kaga yaabay aan kaga khayli waxa waaye albaabaha so many albaaba ayuu leeyahay intaad ka gasho xag ayaa ka bixi kartaa gadaal ayaa ka sii bixi kartaa xaggan kale ayaa ka sii bixi kartaa marka exits tiro badan ayuu leeyahay halkani dhankan idin muuqata dhinacani waxa waaye shaqaalihi iyo marti kale haddii ay ku imaato martida waxaan ku leeyahay gudaha way ku leedahay gurigeeda balse halkani waa parkingka gawaarida halkani ayaa dhiganaysaa gawaaridaada wow ilaa meeqa gaari halkan galaysa 4 mise 3 way galaysaa meeshani very nice marka banaanka markii la guriga u jeedo cladding inaba caadi ahayn aad u qurux badan ayaa lagu sameeyay landscaping ka waa u jeedaa sida uu markaas yahay darbiga banaanka exterior-ga haddii aad fiiriso design-ka sida loo sameeyay dabcan waxaa ku farayarayste engineer inaba caadi ahayn oo cladding aad u qurux badan ayaa lagu sameeyay soo marka garajka laga imaado albaabkiisa dhankan ayaa ka geli kartaa soo gawaaridaada halkan ayaa ka access garanaysaa subaxi dhinacan waxaan ku dhahay waa dhinaca kaliya ee shaqaalaha iyo martida iyo lagu talagalay dadka markaas sidaas leedahay kisto geesa u yar degnaadaan gardenka meel walba gurigani chance walba ka soo baxo dhul waxaa lagaga xusha in laga dhigo garden main gate-ka gurigani laga galo waa dhinacaasi waan tagi doonaa oo ku tusi doonaa hadda inta waxa waaye balcony inaba caadi ahayn aad u weyn oo aad ku nasan karto waxaa la dhahaa entertainment area waa meesha madadaalada halkani ayaa waxaa gashanaysa fireplace-ki geedihii halkaasi ayaa dabkaada ku shidanaysa dhinacani weli waa ujeedaa waxa waaye nafaasa inaba caadi ahayn aad u weyn oo iska loogu talagalay madadaalo iyo inaad iskaga damaashaado iskaga baashaasho so halkani waxay ku geynaysaa isla qolkani waad soo gali karto qolkani very nice very beautiful very cozy gypsum-ka lagu sameeyey kama sheekayn karo qolkani fadhiga ma aha qol marti ma aha qol la gaari doono kii kale ma aha qolkani waxa waaye qolka madadaalada ayaa lagu magacaabaa waxa waaye jawi baashaal damaashaad iska farax maaragtay waxa waaye meesha lagu baashaalo waaye qolkani qolka lagu baashaalo waaye in short waxa uu leeyahay aeration aad u fiican waxa uu leeyahay albaabadani oo sliding ah oo dhinacani oo aad ka aadi karto balcony-ga yaraa ee hadda aan soo tusaynay waa glass iftiinka cadceedda waa ujeedaa halkaas ayaa ka dhuuxanaysaa si fiican jawigani inaba caadi ma aha waxa uu leeyahay darbigii oo markaas isagana loo sameeyay wax daaqad ahaan haddana daaqad aan ahayn oo la doonayo inaad halkani hawada aad ka hesho ka dhuuxdo kasoo gudub finishing-ka lagu sameeyay gurigani xulashada la xushe yacni alaabta la geliye
إنما عادي معها وحا لا دورته أو لا حشة إن لا استعماله لنا أذيك سده ألواح دانكني هذا إلا سيلينك هدي هذا ركته waxaa lagu sameeyay alwaax inaba caadihin aad u qurux badan marka soo gasho gudaha u soo gasho halkan waa hallway corridor-ga inaba caadi maaha ilaa iyo dabada si dambe markaysa u jeedo waxa waaye isla guriga hadda ku jirno marka soo gasho qolkii madadaalada ka soo baxnay hadda inta waxa waaye jikada waa laba qayb ahaan jikada mid qoyan iyo mid waxa jirta iska angegan marka midani waxa lagu magacaabaa jikada qalalan ee angegan macnaheedu waxa waaye wax oo yaani la rabo ma inaad ku dhaxto weelasha maacunta ma aha in halkan aad ku dhaqdo oo aad ku nadiifiso macnaheeda halkani waxa waaye inaad cuntadaada ku karsato ku damaashato ku baashasho ku raaxaysato adigoo haddana jawi qaadanayo fully fitted way jikada waxay leedahay appliances ay nooc wax walba dhamaysa halkani waa jikadaadi halkani ay ku karsanaysaa waxa ay sidoo kale leedahay toobka u jeedo halkani biyahaaga ka helaysaa halkani waxa waaye qaanadihii aad gashanaysay maacuntada sidoo kale inta waxa waaye meeshii dishwasher-ga maacunta halkani ay markaas ku dhaqmayaan inta waxa ku hagaagsan TV-ga oo aad ka daawanayso CCTV ahaan kamerooyinka soo adigoo cuntada karna ayaa arkaysa qof walba iyo dhaqdhaqaaqiisa halkani maxaa kale waa kuwa dhammaan maacunti maxaa lahaa appliances kan dhehe haddii ay noqoto kuleysadii iyo alaabihii kale oven ahaanta iyo waxyaabihii lagu sameynay cake iyo biscuitka iyo waxyaabahaasi halkan waxaa kugu diyaarsan frinjeerkaaga very huge very big oo cusub ah sidiisa space walba soo bixi karo waxaa la xushe in laga dhigo qaanada oo markaas adigana sidaas ku anfacaya toobka lagu sameeyo mabolka inaba caadi maaha aad ayuu qurux badan yahay finishing aan laga sheekeyn karin waaye halkani waxa waaye pantry-ga mise store sida aad u garanayso store-kani waxaad ku kaydsanaysaa raashinkaaga qaanadihiisa inaba caadi maaha aad ay u tiro badan yihiin wax walbana markaas dhamayso ayuu ku yahay albaabada haddii aad aragto wow very amazing very cozy waxa si dheer oo muhiim ah in jikadani marka ay tahay mid qalalan halkani inaad ku haysato jiko kale oo ah mid qoyan waa wet kitchen haddii aad maqli jirtay waa ka halkani ayaa waxa ku sii diyaarsan isla frinjeer kale appliances markii la dhaho gurigani inaba caadi maaha waa frinjeer kale bashi oven ka ahayd tan waxa waaye kuleysadii halkani waa albaab oo aad ka baxayso exit very nice very beautiful biyahaaga ceel ayuu leeyahay gurigani inaba caadi maaha isla halkani ay hadana waa jiko kale halkani ay ku karsanaysaa waxaan kulli waa qaanada washing machine iyo midii markaas qalajinaysa halkani waa albaab kale iyadana oo aad ka bixi karto halkani waa extra qaanadihi oo aad adigana markaas adeegsan karto isticmaali karto jikada marka waxay ku xariirinaysaa oo ay ku diraysaa qolka khadada inaba caadi maaha aad u weyn nafaaskiisa aan laga sheekeyn karin halkani waa la xiri karaa halkani albaab waa la xiri karaa marka intana ayaa khadada ah halkan marka ku qadayso waxa u gudbaysaa qolka TV-ga qolkan aad u jeedo waxaa loogu talagalay in lagu daawado aflaanta lagu daawado wararka lagu daawado TV-da halkan ayaad ku dhagsanaysaa TV-ga soo gurigan marka degan tahay oo aad doonayso inaad wax daawato qolka daawashada ayaa imaanaysa marka waxaan dhigi karnaa waa theater yar mise waa cinema aad halkan u imaanayso adiga inaad markaas ku mashahdo ku daawato wax walba markaas aad jeceshahay markaad ka soo baxdo theater-ka waxaa imaanaysaa toos qolka fadhiga baaxadiisa dabcan waa ujeedaa inaba caadi maaha aad ay u weyn yahay waxaana la xushay in laga dhigo mid markaas hawada ku furan oo iftiinka iyo cadceedda markaas halkan ka dhuuxanayso wallkiisa aad ayuu u yar yahay darbi hadii la dhaho darbigiisa aad ayuu u yar yahay intan bas ayaa darbi ka ah dhinacan kale waa wada muraayadii iyo markaas daaqadihii iftiinka halkaas aad ka dhehaysa oo aad ka dhuuxaysa
دربي ير أو storage ahaan markaas aad u samaysan karto halkani waxa waaye meesha dabka maxaa la dhahaa markaa caweynaysaan fireplace-ki halkan aad ku shidanaysaa dabka kuraastaada adigoo mushaaxayo damaashaada iska baashaalada haddii aad doonayso halkani ayaa waxaad dhigan kartaa TV-gaaga halkan ayaa saaran kartaa gurigani marka haddii aad eegto space-ka u dhaxeeya ground iyo roofka ma laga sheekayn karo aad ay weyn yahay very big very huge isla fadhiga adigoo jooga haya haddana waxaa hadalkani ku haysataa aquarium meeshii aad ku xanaanaysan lahayd kalluunka jawi ayna bacaadi ahayn aad u qurux badan degan oo glass ah biyihii halkani waa maqlaysaa shanqadha so waxaa halkani keensanaysaa kalluunkaaga halkani kugu noolaanayaan waxaa loogu talagalay kalluunkaasi waa midka quruxda iyo bilicda leh ee ma aha kalluunka badda aad ka soo guranaysay kalluunka waxaa waaye midka loogu talagalay bilicda iyo quruxda in jawi aad iskaga qaadato adigoo xanaanaysanaya kalluunkaaga halkani waxaa waaye masquusha martida mise masquusha bannaanka ma laga sheekayn karo masquusha halkani waxay ku leedahay muraayadaadii biyahaaga masquushana waa suspended halkani ayaana waxaad isaga fulaasaysaa gurigani waxyaabaha uu ku fiican yahay ku quruxsan yahay waxaa waaye mar walbo yacni iftiinka cadceedda nuurka ayaa waxaa loo dhigi karin ma jirto wax loo dhigi karo halkan waa space fiican ma aqaano waxaa ka dhigan karto wuxuu ku soo baxay ma aqaano laakiin waa jaraanjarta hoosteeda nafaas aad u qurux badan u fiican waaye markaa ka soo tagto stairs-ka intaadan korin space kaloo yaroo macaan ayaa halkan kugu diyaarsan kadib waxaad galaysaa qolka martida markaad timaado waa very spacious nafaas ahaan markii la dhaho aad ay u weyn yahay aad ay u qurux badan yahay gypsumka lagu sameeyo waa ujeedaa dabcan quruxdiisa iyo bilicdiisa waxa uu leeyahay open plan waaye yani macnaha daaqadiisa iyo derbiga waa laga saaray meesha daaqada halkan ayaa lagu dhex sameeyey adigoo haddana derbigii uu ku yahay mid open ah oo aad bannaanka si toos ah uga daawanayso waxa uu leeyahay walking closet meel oo yani gooni u xiran oo dharka iyo loogu talagalay marka qofka inuu kusoo labisto halkani ayaa ah armaajadaada si fiican ayaa haddana ugu keedsanaysaa dharkaaga muraayadanna suuxi ayaa ku labisanaysaa oo adiga ayaa isku diyaarinayaa kadib dhagdhag martida ayaaba ka qaalisanba dadkii meesha degnaa masquusheeda waata halkani waa dhanka qaweyska shawarka iyo systemka markaasi la hagaajiyo ee la geliyo la isticmaalo ina bacdi maaha shawarkani ah look at this very nice masquushi iyo sinkigaagi halkaas ay kugu diyaarsan yahay dhinacana wuxuu qabaa sliding door dhinacana waa daaqada oo kii kale ah very beautiful qolka jiifka kor ayay naga jiraan marka gurigani waxa uu ku fiican yahay waxaa waaye meeshani tiles ma jiro tileska waxaa laga dhigaa alwaax isagoo dhan tiles kuma arkaysid very beautiful waa open plan haddii aad maqli jirtay open plan macnaha waxaa waaye daaqadaha ayaa ka badan derbiga iyo dhagax la isticmaalo gurigana waa ku yaryahay qolka koowaad qolkan waxa uu leeyahay ceiling saan u ah ina bacdeen alwaaxi ah AC ayuu leeyahay adoo runda joogto ayaa haddana qolka lagu sii sameeyay AC very nice so qolkan waxa uu leeyahay walking closet isla sidii aan soo marnay halkani ayaad ka labisanaysaa wow marka saa u furto nalka halkani ku jira waa sensor isaga ayaa isdaaraya so armaajadu waxay leedahay koronto armaajadu waxay leedahay nal dharkaaga si fiican u arkaysaa dadka qaar waxaa dhacda in dharka ay badankooda arkin uu sidaas u dambeeyo very nice
very beautiful, very cozy. armaajada ma laga sheekeyn karo. halkan hadana waa masquusha, qol walba waxa uu leeyahay masquushiisa. masquusha very nice, aad u qurux badan, jawigeedu degan yahay. gurigani sidoo kale cutting boardska waa lagu sameeyay. dhinac walbana waxaa laga faa'iidaystay in storage ahaan loo sameeyo. high quality finishing ayaa waxaas la dhahaa. nalkiisa waa ujeedaa oo waxa uu leeyahay alwaax oo gypsum ahaan loo isticmaalay, loo sameeyay. haddana lagu sameeyay nalkii oo hoosta laga geliyay, qurux badan. hallway ku geynaya marka ka timaado qolka koowaad. qolkaasi waxa uu la mid yahay ama uu la siman yahay qolka hoos aan ku soo marnay ee martida. hallway-gani halkani waxaa balcony ahaan kugu samaysan oo aad kala hadli kartaa dadka markaasi qolka fadhiga jooga. halkani ayaa ka sheekaysan kartaan mararka qaar qolkaaga jiifka markaad ku cajisto. so alaabahan kuu sheegay ee quruxda badan ee bilicda gurigani soo saarayo waxaa waaye nafaaska iyo balaca markaasi u dhaxeeya groundka iyo ceilingka mise roofka. marka gurigani waxyaabaha uu cajiibka ku yahay ee soo jiidanaya indhahaga waxaa waaye habka loo adeegsaday natural fittingka, so finishingka naturalka ah ee dabiiciga u eg, claddingka iyo alwaaxa iyo open yani systemka ahaan ee markaasi la adeegsaday la isticmaalay. so halkani waa balcony yar oo aad kala hadlayso dadka markaasi qolka fadhiga jooga. cabirkiisa inaba caadi maaha, very nice. halkani waxaa kugu diyaarsan meesha aad isku diyaarin lahayd masquushiisa waata. intana storage-ka ayaa looga faa'iidaysanayaa in markaasi aad ku kaysato suudkaaga iyo waxyaabahaaga iyo dharkaaga. dhan walbana waxaa la geliyay armaajada oo isla markaasi leh light oo sensor ah. so dhinacana u jeedaa waa armaajadii oo sliding doors leh. sliding doors leedahay, very nice, beautiful. mala sheekayn karo inaba caadi ma aha. marka isla dhankani wali qaanadahaaga sidana ay kugu diyaarsan yihiin. so guri aan laga sheekayn karin waaye. isla dhinacana waxa uu ka leeyahay daaqadi oo glass ah, waana open. marka sidaas waxay ka caawinaysaa in daaha markaad subaxii aad toosto markaa ka siiso iftiin macaan badan oo qurux badan in halkaasi aad ka hesho. haddana adigoo daawanayo gardenkaaga iyo jawigaasi adigoo haddana indhaha markaasi ku nursanaya. qolkani qol jiifa ma aha, laakiin haddii aad Soomaali tahay waxaad ka dhigan kartaa qol iska jiifa. balse qorshaha iyo nidaamka uu lahaa qofkii gurigani diyaariyay dhise, qolkani waxa uu ka rabay xafiis mise waa study room. study room mise waa xafiis ayuu ka rabay. qorshihiisana sidaas ayuu ahaa. qolkani derbigaasi oo dhami waa laga saaray meesha oo glass ayaa laga dhigay iyo daaqadihii. halkanna waxaa ujeedaa armaajada oo aad markaasi ka dhigan karto midda buugaagta iyo loogu talagalay faylalka iyo waxyaabaha akhriska ah. very nice, very beautiful. marka qolkani ma la dhihin waa study room ee maxaan kaga samaynaynaa gypsum, ma la dhihin. gypsumkiisa waa loo sameeyey. dhinacani waxaa waaye master bedroomka. intaadan gelin horta waxaa halkani kugu diyaarsan alaaba inaba caadi ahayn. so meeshan waxaa loogu talagalay in aad ka controlsho wixii system la dhahay. systemka giddigiis halkani aad ka controlaysaa. waxaa waaye solar panelkii, water heaterkii, control panelkooda halkani ayuu kugu jiraa. wixii wifi iyo kii kale ahna halkani ayaa loogu talagalay markaasi in laga controlo. isla meeshani iyadana waxaa waaye extra storage. halkani ayaa storage ahaan iyadana u adeegsanaysaa oo aad isticmaalaysaa. halkani waxaad dhiganaysaa waxyaabaha markaasi iska muhiimka ah oo aad meel kale u wayse. storage ahaan waaye. albaabadani inaba caadi maaha. marka master bedroomka inta aadan gelin halkani waxaa kugu diyaarsan system aan inaba caadi ahayn. waa monitorkii oo aad u isticmaalayso inaad ka wacdo dadka markaasi aad rabto inaad wacdo. fadhiga haddii aad doonayso inaad wacdo loungery ayaa ku dhufanaysaa. DSQ1 ayaa wacaysa, DSQ2 ayaa wacaysa. waxaa kaloo wacanaysaa laungery-gaaga, waxaa wacaysaa main gate haddii aad doonayso, waxaa wacaysaa dhammaan meel walba aad doonayso
halkan ayaa ka wacanaysaa sidoo kale systemkani waxa uu leeyahay video call waxa uu leeyahay audio call launcher haddii aan ku tijaabino audio ayaa ku wacan kartaa waa mashquulsan yahay lagu leeyahay hadda video ayaa ku wici kartaa haddii aad doonaysana waxaa u diri kartaa fariin oo message qoraal ayaa halkaasi oo qori kartaa dhag 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 qoraalkaasi ayaa u diraysaa ma fahantay so systemkan inaba caadi ma aha sidoo kale waxaa ka daawan kartaa CCTV-ga ayaa halkan monitoring ku samayn kartaa webcam-ka hadduu yahay on-ka hadduu yahay iyo device-yaha kale markaasi gurigani ku xiriirsan gedigood halkan ayaa ka daawanaysaa inaba caadi ma aha Secolink ayaa baashani soo xirtay oo monitorka ayaa lagu talagalay marka master bedroom-ka ayaa imaanaysa master bedroom-ka albaabkiisa waa ujeedaa very nice geedihii netchagi buuqi meesha biyaha aquarium-ka ee kalluunka lagu talagalay waa aamuseen albaabka markaa xirto ma maqlaysid master bedroom-ka waxa uu leeyahay AC-giisa design-ka lagu sameeyay roof-kiisa mise ceiling-kiisa design-ka lagu sameeyay waa alwaaxaas u jeedo halkan waxa uu ka leeyahay balcony ah inaba caadi ahayn aad u weyn qurux badan jawiga ruunda xaafadda la dhahayo aad ka daawanayso balcony-giisa ima waxa uu la xiriirsan yahay oo markaas uu la xiriira qolka weyn ee qolweynaha master bedroom-ka ayaa iskale balcony-gani aad ay weyn yahay inaba caadi maaha halkan waxa ku diyaarsan geedkaaga geedkani ma aha kuwii beenbeenta ahaa ee markaa la dhigi jiray meelaha kani waa real sidiisa ayuu ku dhammaystiran yahay wow master bedroom-ka intani marka uu la dhan yahay very cozy very beautiful alaabtan aan waan fahmi waaye waxa laga rabo okay so meeshan waxa laga rabaa maxaan lahaa counter camal mise baa camal topkii I don't know ma fahmi kara baashan haddii aad garanayso isoo sheeg master bedroom-ka maxaa loogu dhex sameeyey halkan waxay ku leedahay charging system oo waxaa gashanaysaa chargerkaagi okay mise waxay noqon kartaa inaa miis ahaan aa u isticmaasho miyaha laptopkaaga haddii aad doonayso inaa waan ku wareeray ma fahmi karo so qolka master bedroom-ka alaabahaas ayay leedahay musqusha musqusha master bedroom-ka kaalaya intaad musqusha gaarin horta halkan waxay ku leedahay albaabkani waa master bedroom-ka wuxuu ku soo diraa weli balcony kale oo aad u weyn bilicdiisa markaasi kugu xiriirin kara kuu diri kara one bedroom oo halkan isagana ku diyaarsan waa guest room camal mise haddii aad doonayso shaqaalaha gurigani keliya ma uga imaanaysid dhankani ee isagana waxa uu leeyahay jaranjartiisa oo hoos ayaa looga imaani karaa so waxa uu leeyahay balcony-gan aadka weyn quruxda badan qolkani waxaa ka dhigi kartaa qolka martida waxaa sidoo kale ka dhigi kartaa qolka shaqaalaha waxa uu leeyahay jikadiisa ayuu leeyahay meeshii qaaca ka baxayay jikadii oo jeedaa alaabihii qaanadaha halkani waxaa kugu diyaarsan frinjeerkani waxa uu leeyahay 10 years warrant 10 sano oo warrant ayuu leeyahay waa shirkadda Bosch frinjeerkaasi halkaasi kugu diyaarisay so waxa uu leeyahay qaanadihiisa oo dhamays ah inaba caadi ma aha waa weyn yahay biyihiisa waa sitaa gurigani laga sheekayn karo so waxa lagu sameeyay finishing inaba caadi ahayn gypsum-kii markaa aragto panels-kan aa ujeedo bilicda iyo quruxda guriga ay soo saarayaan halkani ayaa ah qolka halkani ayaa ku qaranaysa martida haddii ay markaasi badan yihiin halkan ayaa soo dejin kartaa waxaa waaye armaajadii oo sliding ah sidaas ayay ku diyaarsan tahay qolkan isagana waxa uu leeyahay wall dhan oo hawada lagu cune oo daaqadii ah ka daawanayso dariska iyo gardenkooda very nice isla qolkan waxa uu leeyahay masquushiisa ee gudahani oo cladding aad u qurux badan lagu sameeyay finishing aad u fiican khubeyski iyo masquushi isku dheeli tiran inaba caadi maaha isla qolkan isagana systemkiisa waa wataa waa uu leeyahay aan tijaabino inaan wacno main gate
Mambo? Aya, tulikuwa tuna test. Tulikuwa tuna test. Hii ni main gate eh? Testing. Iko sawa kabisa, unanisikia vizuri? Thank you so much. Awjeeda, xaqiiqa uu shaqeynaya. So kolka ayaa ka wacaysa. So kolkani waxa uu leeyahay isagana balcony-giisa ayuu leeyahay. Halkan ayaa uga baxaysa. Meesha waa fadhiga, TV-ga halkaas ayaa saaranaysa. So dhinacan ayaa looga imaadaa qolka. Dhinaca looga imaado wata. Stairs-ka waa meeshii garage-kii hadda aan ku tusayay parking-ka gabaarida la dhiganahay ayaa laga soo koraa gadaal. Halkan ayaa ka soo koraysa. Wuxuuna ku keenayaa qolkaaga ee one bedroom-ka ah. Waa qolkii, musqushi iyo fadhigi. Dadka qaar waxba iskaga fiicneed in one bedroom-kan kaliya lagu siin. One bedroom-kan hadii lagu siin lahaa waaba mushaaxaysa, tawaashadaysa, si fiican u baashaalaysa. Waxaa inoo dhiman oo aan weli ku tusin master bedroom-ka musqushiisa iyo walk-in closet-ka uu markaasi leeyahay. Qolkani master bedroom-ka markaad timaado musqushiisa ayaan albaabkeeda taagannahay. musqushani wallahi haddaad eegto oo aad fiiriso qolol master bedroom lagu magacaabo oo isli ku yaala way ka weyn tahay. master bedroom oo xaafadaha kale qolka jiifka lagu tashanayo ah ayaa waxaa u dhigmataa musqushani kaliya. soo gal. alaabta waan garanaysaa. halkan ay madaxa saaranaysaa. halkan ay ayadana saaranaysaa. halkan ay madaxa saaranaysaa ayada. adigana halkan ay saaranaysaa madaxa. jawi. dhinaca qawayska. dabaasha markaa ku daasho qawayska halkan ay imaanaysaa. showerka, bilicda, hanaanka, finishingka, materialka, xulashada innaba caadi maaha. waa laga taxadare. halkan aad ku warinaysaa dharkaaga, halkan aad ku warinaysaa towelkaaga, halkan aad ku warinaysaa waxaaga, nalka iyo sida loogu sameeyo marka derbiga cladding-ka innaba caadi maaha. bathtub-kii oo design kala duwan leh, musqushi wata. tanna waxaa waaye mid nadaafadda midan ma aqaan waxa loo isticmaalo. musqulo badan oo ku arkay oo hoteelada waaweynka ah, laakiin waa nadaafadda way kolley. biyahaaga ay ku joogaan waa joogta 24/7 maadaama guriga uu leeyahay ceel. dhinacani waxa waaye sinkiga iyo dhaqmada iyo nadaafadda keliya. so muraayadaada waa ujeedaa, hanaanka iyo quruxda iyo bilicda iyo nalalka markaasi sida loogu qariyay gadaasheeda. very cozy, beautiful. indhaha markaa qabanayso haddana iftiin yar oo macaan ayaad markaasi dhuuxanaysaa. halkani ayaa waxaad dhiganaysaa laabahaaga nadaafadda ee yaryar sida toothbrushka iyo waxyaabahaasi, toothpaste-ka iyo halkani ayaad ku kaydsanaysaa. inta waxaa kale ayaad ku surani kartaa. marka waa musquul innaba caadi ahayn oo laga taxadaray. very nice. muuqaalkani dabcan inta badan gurigani waan kaga boganay, laakiin haddana ma aha guri laga dhammaan karo. gurigani waxaa un iibsan karaa oo gadan karaa qofka jecel raaxo. haddii aad doonayso inaad raaxaysato, degto, si fiicanna nolosha aad uga rayso, this is the house to buy. xima maqlaysa musqusha markaa gasho alaabtaas aad shidaysa haddii aad doonayso in lagu maqlo. master bedroom-ka waxa uu leeyahay walk-in closet. walk-in closet waa meesha aad ka soo labisanayso dharkaaga, halka uu kugu keydsan yahay, alaabahaaga halka ay kugu jiraan, gabadha dahabkeeda halka uu ku jiro, maxaa la lahaa dharkaaga kulli halka uu kugu diyaarsan yahay. subaxii markaad doonayso inaad baxdo waa meesha aad ka soo labisanayso. amazing. qaanadihii, muraayadani intay dhan tahay waa ujeeda. dharkaaga derbiga xagga ka soo bilaabato
ilaa iyo inti waa 7 foot ilaa iyo 8 foot oo armaajo ah inta gedigeed commented ilaa iyo halkani waa wada armaajo dharkaaga keliya maaha adiga iyo xaajiyada halkani aad ku keedsanaysaa si fiican inaba caadi maaha isla dhinacani waxa uu ku leeyahay muraayad kale oo aad isku diyaarinayso subax markaa bixiso intaas aad dhahdo isku diyaarso isfiirso ku baxayso marka ma laga sheekeyn karo master bedroomka aad ayaa looga taxadiray looga shaqeeyay very nice very beautiful waxa uu leeyahay albaab oo laga sii bixi karo albaabkaasina wuxuu ku xariirinayaa balkoniga banaanka ee markaasi guriga gadaashiisa aad ka daawanayso soo gurigani qiimihiisa waad la socotaa waa 350 milyan aad iyo aad u qurux badan uu istaahilaa runtii oo u qalmaa isla guriga aan joogno dabcan qaybtani waa qaybta waxaa ku dhahay martida iyo shaqaalaha iyo garajka marka gadaashiisa garden yar oo macaan oo qurux badan ayaa jira waana ku tusi doonaa balse intaan dhinacani aadin isla meeshaan ka soo bilownay muuqaalka swimming poolka waxaa jira haddana waterfall oo iska dabiici ahayn oo qof sameeyay marka waterfallkaas isagana waa arki doontaan gurigani bilicdiisa iyo gardenkiisa iyo quruxdiisa ma laga sheekeyn karo marka qaybta dambe ee shaqaalaha haddii aan eegno oo aan fiirino indhaha ku doogsada dhirta iyo carafta ka soo baxayso xaafadani inaba caadi ma aha mana tilmaami karo muuqaalka haddii aad daawanayso dabcan waxaan rajaynayaa inaad iska dareemayso guriga aan ku dhahay waa dhinaca shaqaalaha garajka mise parkingkii lahaa ayaan gadaal la soo wareegaynaa haddii aad soo socoto halkani waxaa waaye taangiga solar systemka ee markaasi biyaha kululeysa halkani ayay ku diyaarsan tahay dhirta geedaha ma laga sheekeyn karo gadaashani marka gurigani waa guriga shaqaalaha waa DSQ oo laba xaba ah DSQ1 DSQ2 mid walba waxa uu leeyahay jikadiisa musquushiisa gaaskiisa ma laga sheekeyn karo inaba caadi ma aha jika ayaa leedahay halkani cuntada ku karsanaysa musquusheeda halkani waaye halkani ayaana seexanaysaa DSQ2 haddii aad timaado isagana sidoo kale waxa uu leeyahay musquushiisa waxa uu leeyahay jikadiisa waxa uu leeyahay armaajadiisa waxa uuna leeyahay nalalkiisa iyo dhammaystiran wax walba markaasi guriga uu kaga maarmi karo qofka shaqaalaha haddii aad soo socoto halkani waxay ku keenaysaa albaabkii hadayto aan ku tusay ee aan ka galaynay meesha aan ku dhahayo waxaa waaye parkingka gawaarida albaabka halkaasi aad ka galaysaa intana waa gardenkii markii ugu horeysay aan ku tusay ee aan ka galayna guriga gadaal haddii aad la soo wareegto garden kale aad u qurux badan aad u weyn oo aad ku qaadanayso jawi ayaa kugu diyaarsan halkani soo cooska halkani kugu beeran waa ujeedaa very cozy very beautiful AC-ga halkani ayaa lagu qariyay guriga gadaashiisa halkani ay ka afuufayaan qabowga aad markaasi ku haysato xaafadda Runda AC u malaynayo inaad u baahan tahay marba haddii xaafadani degan tahay waan soo wareeganay waxaana imaanay gardenka dhinaca swimming poolka meeshani waa dhinaca swimming poolka muuqaalka markaan bilaaweynay halkaas aan ka bilaabnay saas aan u baxnay waan soo wareegsanay underground tank biyaha halkani ay kugu keedsamayaan sidoo kale meeshani waa meelihii laga controlayo gardenka inaba caadi maaha aad iyo aad u weyn aad iyo aad u qurux badan dhirta ma laga sheekeyn karo very nice very beautiful jawiga haddii aad mar hesho waxaa ku degaysaa maskaxda ayaa ku degaysaa oo ku qabowaysaa kuna raaxaysanaysaa halkan aad u jeedo waxaa waaye waterfallkii man-made-ka ahaa ee adigoo halkan iska jooga iska daawanaysaa kuna qabowsanaysaa kuna raaxaysanaysaa inaba caadi maaha la soo wareeg isla gardenka ayaa weli dhex socotaa dhirtana waan u jeedaa halkani waxaa waaye marka dhinacii dabaasha ee swimming poolka oo halkani kugu diyaarsan kugu samaysan waxaa malaynayaa inay baashani sidan loo furo hadda bac ayaa saaran soo sidan ayaa oga qaadaysaa ma jeedaa sidaas ayaa oga qaadaysaa
بعد إنما عادي معها swimming pool كأدي وين هاي لقصوا بلا وحاجاسي لا يو أنت وانكوش جورجاني دولك وكفر وحاواي eber dhibic 6 acres aad ay weyn yahay marka gurigani aad u jeedo quruxda badan bilcadani leh ayaa waxa uu suuqa ku jira qiimihiisana waxa waay 350 milyan ma laga sheekayn karo inaba caadi maaha so haddii aad doonayso gurigani dhammaystiranka ah wax walba oo jimciye kulan siiye dhamayska ah ee la swimming poolka gardenkani leh aad u jeedo jawigani leh xaafada runda ku yaalo 350 kaliya uu yahay qiimihiisa cabirka uu ku fadhiyana markaas uu yahay 10,000 oo square feet mala sheekayn karo muuqaalkani halkaas ayaan ku soo afmeeraynaa ilaa iyo kulantii dambe oo anigoo ah Farxaan Cali Mukhtaar idin leh ciao mac salaam